kulati wacan oo xiisan idin hantiinba hadda wadayaashan aan jecelnahay oo goob kasta oo maqalkayaga iyo muuqaalkayga weyn ka soo gaadhayo kusoo dhawaada Horyaal TV waxa caawa ama maanta marti inoo ah Afnaan Maxamuud Bulaale. Afnaan waxay ka mid tahay dhalinyarada haweenka ee hal abuurka la yimi. waxaan ku suganay dabcan waa meheradeedii ganacsi ama goobteedii ganacsi. ugu horeyn Afnaan waa kugu soo dhaweynaya Horyaal TV. waan ku dhawahay walaal barnaamijka iyo adiga iyo TV-gaba waan idin soo dhaweynayaa. ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa Afnaanay goobtan ay ku sugannahay ama way joognaa waa goob adeegyo nooca ma bixisa ama waa goob maxay ka shaqeysaa? waxa weeyaan Afnaan online waa meherad ka soo bilaabantay dhanka social media-ha bilowgii 2019 baan halkan aan ku jirno oo maxaa la yiraahdaa suuqa bartamihiisa ka furanay meherada laga furay xarunteeda koobaad. waa meherad ku shaqeysa suuq offline iyo online bale. waa meherad waxyaalo badan isugu jirta haday noqoto iibinta dharka dumarka, haday noqoto ciyaalka iyo haday noqoto make-upki iyo hablaha qurxintoodii oo baris iyo marin bale. sidoo kale creamadii ayay hablaha isku qurxinayaan ayaan dhamaantood bahaynaa qaar magacayaga ku soo baxa iyo maxaa la yiraahdaa creamadii kala duwanaa ee adigu la xiiseynayay kulba suuqa ku jira. waa tahay maxaa kugu dhaliyay inaad bilowdo ganacsigan ama meheradan? wallaahi horta waa su'aal fiican Munay. waxa weeyaan qof kastaaba wuxuu leeyahay wax uu markuu dhasho uu jecel yahay macnaha markuu soo kaco ciyaalnimadii uu ka soo baxo wuxuu jecel yahay ama ciyaalnimadiisba wuxuu jecel yahay ayaa jira qof kastaaba oo ah favorite. ani ahaantayda familkayga horta oo haday noqoto family business ka ah iyo aniga oo jeclaa maxaa la yiraahdaa inaan noqdo ganacsato oo wax iibiyo yaraantaydii ma aha fikir aan weyn igu soo dhashay laakiin waa fikir aan jeclaa oo waxaan jeclaa oo kamid dhaliyay. dhibaatooyinkii ama waxyeeladii kala kulantay intii aad ganacsiga ku dhex jirtay maxay haayeen mid la maxaad ka taaban kartaa? alxamdulilaahi rabbil caalamiin. horta wax dhibaato aan ganacsiga intaan ku jiray la kulmay ma jirto. horta yani caqabado way imaanayaan laakiin dhibaato wax la yiraahdo oo kala kulmay ganacsiga intaan ku jiray ma jirto. marka la eegayo bulshadii oo kala duwan oo intaas oo qof oo macnaha qof kastaba dabeecadiisa gaar ah uu leeyahay oo dabeecadiisa qof kastaba ay tahay inaad kula dhaqantid mooyaane laakiin ma jiro maxaa la yiraahdaa wax dhibaato ayo oo ganacsiga aan oran karo waxaasan kala kulmay. ma jira qorshe ama meel aad isleedahay gaadh oo ku calaamadsan? waxaan jeclahay ilaa xad inaan horumarin fara badan sameeyo. sanad kasta ma jeceli halkaan sanadkii hore taagnaa inaan taagnaado. waxaan ahay qof meel u socda. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu siduu inta hore igu guuleeyay rayadayda iyo macnaha rabitaankayga inuu inta dambana igu guuleeya ayaan ilaaha raxmaanka ka baryayaa. waxaan jeclahay inaan horumar ballaaran ka sameeyo dhanka ganacsiga. sidoo kale waxaan jeclahay in aan noqdo macnaha qof haysta maal ku filan kaas oo anigu baahiyaadkayga inaan ku guto aanan yani han baahiyaadkayga ku guto laakiin aan jeclahay markaste masaakiinta inaan wax caawin karo oon heeraan dadka wax tari kara inaan gaadho. inta badan waxa la raado dumarka ganacsatada ama dumarka hal abuurka la yimaado ka madhalay ama meel gaadha ma gacan qabtaan dumarka kale amba haweenka kale dhigooda. adigu aragtida maxaad ka leedahay? wallaahi walaal dadku way isku jiraan. sidii dadku qof kastaaba dabeecadiisii uu gurigooda kala yimi uu businesska markuu soo galana la soo galayaa. dadka qaar waxaa jira markooda horeba dadka soo dhaweyntooda aana jeclayn oo guryahooda ku soo dhaweynin. marka qofkii aan gurigiisa kugu soo dhaweyninna lagama yaabo inuu kugu soo dhaweeyo goobtiisii ganacsi iyo inuu fikir iyo garab istaag ku sameeyo. laakiin macnaha ani ahaantayda haddaan intaan iska aaminsanahay kulli qofku siduu isku yaqaano qofku una isyar yaqaanaa dadkaana haddana yaqaana. laakiin aan waxaan aaminsanahay inaan ahay qof dadka qof kasta u soo joogsada waxna u qabta garab istaagana rag iyo dumarba. waa tahay Afnaanay adiga ka Afnaan ahaan dabcan ganacsigu dhibaato badan iyo wajiyo kala duwan buu leeyahay. wixii kugu la yaabka badnaa intaad ku guda jirtay aad aragtaa muxuu horta Munay waa run ganacsigu waxa weeyaan wax markaa nixinaya markaa farxinaya
weeyaan waanu hawlo badan yahay laakiin anigu wax yani igu adkaaday oo saa igu soo istaagay oon arkay ilaa hadda intaan ku jiro ma jirto oon odhan karo waxaasaan taaban karaayo dhibaato igu noqday waxa la leeyahay dhinac kasta afnaan